asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waan idin salaamay dhammaan asxaabta ku xiran kanaalkeena ee kusoo dhawaada cashirkeena maanta. cashirkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay sidee ayaa loo weeraraa boqorka. haddii aan fiirno positionkan hadda taagan, haddii aan fiirno positionka taagan, boqorka madow wuxuu ku jiraa baxar, isla markaasna wuxuu haystaa difaac ah 1-2 oo ah ruuga iyo boqorka boqorada. positionkan waxaan ka baranaynaa waxa la yiraahdo deflect, macnaha labadooda mid ka mid ah inaad iska saartid. even haddii maanta hadda tusaale uusan joogi lahayn, ruugan joogi lahayn, tusaale ruugan haddii joogi lahayn meesha hadda ruuga taagan yahay ee boqorada taagnan lahayd, easily waxaan dhihi lahayn kuwintaan soo qaadi lahayn, waxaan ku dhihi lahayn check. qasab waxaa ku ah boqorka boqorada inay qaado kuwintan kale, then waxaan hadala dhihi lahayn check mat. laakiin askarigan waxaa lagu hayaa laba difaac oo kale ah roogii iyo boqorada, so marka ma awoodno in aan ku sameyno checkmate. labadooda mid ka mid ah waa inaan deflect ku sameyno oo aan meesha ka saarna. boqorada marka waxay haysaa laba shaqo oo kale ah, waxaa la yiraahdaa xubinta markii laba shaqo hayso waa overloaded, waa shaqada ka badan. shaqadaas oo ah in ay hayso C1 C8 oo ah halkaas, oo ruugan haddii uu imaado C8 boqorka wuxuu ku jiraa check mat. waxaa qasab ku ah marka inuu qaado. sidoo kale overloaded waayo oo shaqo zaa'id ayuu hayaa, oo wuxuu hayaa G7 oo halkaas ah. so marka labadooda ma awoodo inuu isku celiyo, waxaan boqoradan ku sameynaynaa inaan u dirno meeshaas oo ah C8, ilaa waxaa qasab ku ah inay qaado. so ruuga waxaan leenahay marka C8 check, boqorada waxaa qasab ku ah inay qaado. then askariga marka maanta waxaa hayo ruugan oo keliya, difaac kale ma lahan, sababtoo ah fardaheena wuxuu noo hayaa halkan oo ah F8 iyo meeshan oo ah G7. so boqorka marka askarigan hadda wax difaac kale ma haysto oo aanan ka ahayn ruuga, annagana waa ka weerar badanay. mar walba oo aad weerar qaadaysid waxaa la fiiriyaa imise difaac ayaa haystaa, imise weerar ayaa haystaa. so marka boqoradii waa iska leexinay. kuwiinta waxaan ku leenahay marka G7 check. qalcadda waxaan qasaba marka inay G7 qaado. okay, then at the end ruugan waxay qaadaysaa G7 oo qalcaddii kale ah. halkaasna waxaa ku dhammaatay ciyaartii. kaasi waa positionka koobaad. wixii comment iyo faalla ah waxaad nagu reebi kartaan halka hoose. wixii su-aalaha aad qabtaan emailka ku qoran abaawadka ayaa nagala soo weydiin kartaan. haddii aan fiirino positionka labaad, cadaanka ayaa geediga leh, isla markaasna madowga waa laga guuleystaa. positionka haddii aan fiirino, tusaale qalcadan haddii ay tagto C6 oo ah halkaas, still cadaanka wuu badiyaa, sababtoo ah haddii ay qalcadda tagto C6 oo halkaas ah, cadaanka two problem ayaa haysta oo ah in H7 ay kuwintan ku tahay mat haddii ay imaado, oo boqorka meelna ma aadi doono, ciyaartan halkaasi ku gabagabooday. laakiin madowgu wuxuu dheeli doonaa G6 oo ah kan at the end. G6 haddii uu dheelo, bishopkan wuxuu dili doonaa isla G6 oo askarigan waa been ma dhaqaaqi karo. intan waxaa ka saaran mat. still waa winning oo cadaanka mar walba uu guuleysta haddii uusan dheelo. laakiin markii aad ciyaarta dheelaysid waxaa la fiiriyaa moveafka la yiraahdo the forcing moveka qasabka ah inuu blaaga ka jawaabo, oo isla markaasna no option ay tahay. kaasna waxaa waaye kan mar walbaba ciyaarta ay ku beesgaraysantahay in qofka kaa soo horjeedo ama opponentigaada aad qasabtid oo aad qasab ku soo jeedid. so kan hadda haddii aan roog C6 waxaan dhahnaa waa winning oo mar walba waa guul, laakiinse waa laga qurux badan yahay oo waxaan raacaynaa wax lagu magacaabo the forcing move ama moveka qasabka ka ah inuu blaaga ka jawaabo.
kaasna waxay tahay in queenta ay qaado h7 oo halkaas ah, h7 oo halkaas ah. queenta haddii ay qaado h7 oo halkaas ah, black waxaa qasab ah inuu ka jawaabo oo wuxuu qaadayaa boqoradan halkaas taalo. isla markaas roogii ayaa wuxuu leeyahay check, waxaa qasab ah inuu aado halkan oo ah g8. sidoo kale bishopku wuxuu dhihi doonaa check, waxaa qasab ku ah inuu soo aado f8 oo ah halkaas, then roogan waxay checkmate ku sameyn doontaa h8 oo halkaas ah. boqorkan meel uu ka baxa malahan, intana bishopka ayaa ka jaray. halkaasna waxaan ku aragnay positionkii labaad, waxaan u gudbaynaa positionka saddexaad. haddii aan positionkeena saddexaad fiirino, positionkeena saddexaad shaqada ugu horeysa aan qabanayna waxay tahay in boqorkan aan ka jarno inuusan aadin meeshan iyo halkan, uusan naga carinin, waa inaan ka joojinaa. so haddii aan tusaale hadda fardahan aan d4 check aan ka dhahno, fardahan haddii aan check ku dhahno, boqorka wuxuu awoodi doonaa inuu naga baxsado. still position fiican waa haysanaa, laakiinse mating ama inaan maad dhahno ma haysano, oo forcing mate ma haysano. so shaqada koowaad aan qabanayna waxay tahay in boqorkan aan ka jarno 7 frankiga. so rook d6 check, the forcing move waa bishopka inuu ka baxaa e7 uu aadaa d6. so saa u jeedid boqorada waxay controleysaa meeshaan oo dhan waxaa controleysa boqoradii, oo boqorkan awood uma lahan in ay soo gudubto. second, midda labaad aan sameynayno positionka horta haddii aad u fiirsatid, ka waran haddii aan sameyno move aan sharci ahayn, tusaale ahaan ka waran haddii fardahan uu noo joogi lahaa meesha uu ku joogo f5, haddii uu ka joogi lahaa g5 oo ah halkaas, boqorkan wuxuu gelin lahaa baxar, sababtoo boqorka waa in stack meel uu dhaqaaqa malahan, oo waxay noqon lahayd checkmate. inta waxaa ka jaray boqoradii oo horizontal 7 frankiga waxaa jaray boqoradii. sidoo kale intana waxaa controlaya askarteennii, marka awood uma lahan. laakiin taasi sharci ma ahan, oo fardeena waxaan ku celinaynaa f7. okay, waxaan sameynaynaa marka in aan fardahan dhahno, muhiimadda ay leedahayna waa ku tusi doonaa in fardahaas check lagu dhaho. knight d4 check, madowga marka wax ikhtiyaaraya ma lahan, wax doorasho ma laha, waa inuu qaadaa fardaha oo d4. then askarigan ayaan kusoo darjinaynaa oo ah f5 check. waad aragtaa haddii fardaha uu yaali lahaa meeshan oo ah f5, askariga ma soo darjin karno. saas awgeed waa muhiim inaan fardahan meesha ka bixino. so d4 check, queen takes d4, f5 check, boqorka waxaa qasab ku ah inuu aado e5 oo halkaas ah, sababtoo inta waxaa controlaya askarigeena. ugu dambeyntii g3 oo ah halkaas waxay queenteenu ku sameysay checkmate. ciyaartan halkaas ayay ku dhamaatay. inta askarigeena controlaya kama bixi karo, sidoo kale intan askarigeena controlaya, halkaasna queentii ayaa checkmate ka saartay. halkaas waxaan noogu dhammaaday positionkeennii saddexaad, aynu u gudubno midka afraad.